أبا يزيدو إلهي واكو رخصات هايستا لو صليت في بيتك والقرق ما يسجد كتت سنة دوت على مساجد ما قاتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا كميدا دروسنا عريركا أو مواعيد وعانو كسو قادنينا بعض من أحوال السلف ضدكي سلف الصالح هديهن صحابه يتابعين يغير كودبا ضدك أي مهم أي تاي إن لغو ضيدو ضدكاس أحواله دي قار كمده أيانو سو قادنينا مركا haddii aanu dhegaysano noloshoodii iyo waxyaabihii maaragtay ay ilaahay ku caabudi jireen iyo cibaadadoodii iyo daacadoodii siday ahaaday waxaa imaanaysa markaasi inaanu wax badan ka faa'iidaysano ayaa imaanaysa. saxaabada haddii la yidhaahdo waxaan soo qabanaynaa saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu zubayr ibnu alcawaam. saxaabigaas jaliilka waxaa lagu magacaabi jiray xamaamulmasjidaa la dhihi jiray. macnaha waxaa laga wadaa masjidka qooleydiisiyaa laga wadaa. waa sifatu safwa kitaab la yidhaahdo oo ibnuljawsi leeyahay ayaa ka warramaya. waxaa la dhihi jiray saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu zubayr ibnu alcawaam oo saxaabi ibnu saxaabi ah. xamaamulmasjidaa la dhihi jiray. sida masjidka u laasimayo bahashan qooleydaahu meeshay barato mar walba waa lagu arkaa waana iska laasimtaa. ninka la yidhaahdo rabiic ibnu khaytham ayaa wuxuu dhihi jiray asaguna innii la aanisu bisawti cusfuuri lmasjidi إني لآنس بصور عصفور المسجد من أنسي بزوجتي. ninka la yiraahdo Rabiic ibn Khaysam isna wuxuu dhihi jiray waxaan weheshadaa ayuu dhahay shimbirta yaryarka oo masjidka joogta oo marna aan ka tagaynin sawdkeeda ayaan wehel ka dhigtaa u dhahay. waxaan ka wehesho ogahayuu dhahay zawjadayda oon guriga ina ugu tago la jiro oon la noolaado oon u sheekeeyo oon saas ku weheshado waxaan ka weheshi ogahay ayuu dhahay cusfuurta oo masaajidka joogta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo masaajidka kaleba. macnaha wuxuu ka wadaa masjidka inaan laasimo ayaa waxaan ka jeclahay inaan gurigayga caruurtayda iyo haweenkayga inaan la jiro waxaan ka jeclahay ayuu ka wadaa inaan masjidka joogo ayaan ka jeclahay. masjidka muxuu u joogaa? ilaahay cibaadadiisa u joogaa, ilaahay daacadiisa u joogaa. i'tikaaf ha noqoto, qiraa'atul qur'aan ha noqoto, wirdi ha noqoto, salaadihii faralka ha noqoto, salaadihii sunnada ha noqoto, wuxuu u joogaa ilaahay cibaadadiisa u joogaa. markaas waxa weeye waxa uu heshaayba wuxuu ka dhigaba shimbirta yararka oo jalow haysa oo casaafiirta oo raan yarta la yiraahdo shimbirtaas uu maaratay iska weheshanaya. gurigiisana meel u muuqata ayuu ku yaalaa
oo maxaa jooga markaasi xaaskiisa yaa jooga awlaadiisa yaa jooga hadda annaga masjidkii mana laku karo masjidkii waxaan u xaadirayna ma laha meelaha khayrka ma laha meelaan u tegayno waxaan tagnaa meel naadiyaala meela fisqi lagu samayhaayo meel lagu caweyhaayo meel mashaakil oo ka socdo saas weeye markaa waxaan ugu dayanaynaa marka birisa wixii ay markaasi gaareen sayn ku gaaraynaa waxaa loo baahan yahay dadka wanaagsan in lagu daydaa la rabaa qof adiga hoos kuu ridaaya oo maaragtay martabadaada ay ku dhacayso adduun iyo aakhiraba inaad ka harta weeye waxaa lagu daysadaa dadka wanaagsan ayaa lagu daysadaa waxa lagu daysado ilaahay ka bacdi ilaahay waa khaaliq iyo makhluuq lagu daysado rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu weyn allana waa taw dhahay subxaanahu wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir ilaahay rasuulkiisa waxaa idinkugu sugan oo dhahay alla subxana wa taala isagoo dhaar ku maraya dayasho wanaagsan laakiin waa qofka rajaynaya alla ambase ka cabsanaya rajadaas khoofna waa lagu fasiraa qof alla ka baqaaya iyo maalinta qiyaamo ayaa dayasha ugu sugan tahay haddaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu ku daya weyno waxaanan ka baqaynin aakhiradii ayaanan ka baqaynin alla subxaanahu wa tacaala ayaanan ka baqaynin marka waxa weeye dadka ayagu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku daysaday inaan annaguna ku daysana ayaa loo baahan yahay ninkaa la yidhaahdo rabiic ibnu khaysam cudur ayaa ku dhacay oo dhabarka ayaa cudur ka galay markaasaa waxaa weeye dhabarkiisu waa dhacay markuu saas noqday waxaa jiri jirta markaa yuhaadaa bayna rajulayni ilaa masjidi qowmihi laba nin ayaa garbaha ina ka qabata ayaa masjidka qoomkiisa ayaa u hogaami jireen masjidkaasuu aadaayey markii horena waa ninka maaragtay ahay sidaas ahay cabdullaahi ibnu zubayr oo saxaabi jaliila isagana waxaa la dhihi jiray xamaamulmasjidaa la dhihi jiray dadkaasi saasay cibaadada ugu dadaalayeen maxaa yeelay biri qiyaamo ayaa waxaa weeye qiyaamadii ayaa bayna caynayhima aheeday indhaha halkaasay qiyaamadu u joogtay neefta markay maaragtay gadaalu celiyaan inay soo celi karaan ma u malayhaynin sidaasay maaragtay aakhirada uga fikiraayeen cabdullaahi ibnu mascuud saxaabiga la yidhaaho jaliilkaa waxau ahaay inuu leeyahay dadka asxaabtiisa nin ka mid ahay masalanba yaa abaa yaziid qad rakhasa allaahu laka low sallayta fii beytika waxaa weeye cabdullaahi ibnu mascuud ayaa rag asxaabtiisa waxaa weeye masjidka ayuu ku mintidayaa cibaadadiiu ku mintidayaa waqtigii markaasi waxaa weeye ou ahay xaalatulxaalka uu ahay markaasay waxay dhaheen abaa yaziid waa kuniyadiise abaa yaziidow ilaahay waa kuu ruqseeye war ruqsaad haysataa low sallayta fii beytika war gurigaaga ma isaga dukatid saanaadba u taalaa masaajid ma gaartide asaguna wuxuu dhahayay innahu kamaa taquuluunaw dhah sidaa idinku sheegaysiin waa tahay oo ruqsadii waa haystaa inaan gurigayga ku dukado tabarna ma haayo walaakinii samictuhu yunaadii xaya cala asalaah hase yeeshee waxaan maqlow dhahay mu'adinkiyaan maqlaaya oo dhahaya xaya cala asalaah xaya cala alfalaax salaad u kaalaya liibaan u kaalaya aa dhegteeda ku soo dhacaysow dhah faman samica minkum xaya cala asalaah falyujibhu walow zaxfan walow xabwanow dhah qofka adinka idinka mida oo maqla xaya cala alfalaax ha ajiibo ayuu dhah walow zaxfan isagoo dabada birida ku garguuranaayo oo barida ku socdaba allah ka dhigo walow xabwan isagoo garguuranaya allaha ka dhigow dhah ee mar haddii lagu yidhi taasaa jirtow dhahay oo waxaan maqlaa u dhahay xaya cala asalaah xaya cala alfalaax ayaan maqlaa marka meel aan jooga male waa ajiib ah u dhahay taasaan ajiibaya u dhahay marka balka war hadde markaas
raggaas maaragtay ajilada ah weliba aad iyo aad waxay ugu dadaali jireen salaada oo fajarka salaatu subh ila nabiga dhahay alayhi salaatu wasalaam man salla al-ishaa fi jama'atin fakaanna ma qaama nisfa al-layl oo dhahay hadiis sahih nabigu waxa weeye waxa dhahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam qofkii cishaha jamaaca ku dukada waxay ka dhigan tahay asoo habeenka nuskiisa oo dhan dukanay habeenka nuskiis dukanay jamaacada soo ku dukada intaas ku helaya ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله qofkii waxa weeye subaxa jamaaca ku dukadane waxay ka dhigan tahay habeenkaas oo dhan isagoo salaatu leyl u taagnay marka sidaas ayaa waxa weeye fursadaas iska luminayn hatta haday salaadihii jamaacada ku dukadaan habeenkii hadda maartay ma soo hurdeynin fiiri waxa weeye saxaabiga jaliilka oo leeyra al-Haris ibn Hasan habeenada kamida ayuu haween guursadaa leeyri Haris habeenada kamida ayuu guursaday waxa soo xaadira markaas faxadara salaat al-fajr ma'a al-jamaa'ati asagoo aroosa oo xalay naag loo keenay salaadii subax waa soo xaadira jamaacada dadkii waa marka fiirfiirna waxa leeyahay hada waana jirtaa hada waxyaabaha hada salaada loogaga joogayo arooska kamida ninka haduu todobad iyo ku jiro iyo waa loo ruqseeyay jumcada iyo jamaacada inuu maartay ka taga loo ruqseeyay maxay yeelay zawdaji waxay u baahan tahay wax la yiraahdo mu'aanasay u baahan tahay saas ayadoo tahay ayuu waxa weeye salaadii subaxa ayuu soo xaadiray xalay idoo haween loo keenay waxa wariyay imaamka leeyra imaam Tabarani oo ka wari Anbasat ibn al-Asr oo ka wariyay تزوج الحارث ابن حسان وكان له صحبة وحويه وغورسدي اسغو صحبه اي اسغناتay markaasa waxa la yiri atakhruju wa inna ma buniyat bi ahlika fi hadhihi laylati waxa la yiri riyo ma baxaysa oo masaajidka ma aadaysa ayadoo maanta haweentii lagu dhisay oo guriga lagu soo galiyay markaasuu wuxuu wallahi إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة يوري في جمع لا امرأة صوء نورة هذا وحال لوغاي صلاة كددالكيسا ما ogtahay markii hadalkaas la weydiiyay wuxuu dhahay ilaahan ku dhaartay naag ii diidaysa iga mancinaysa salaada subaxa inaan masjidka aan aado oo jamaaca ku dukado la imra'atu sawna naag xun way u dhahay taas miyaaba naag noqonayso u dhahay taasna agtaydi ma ahna u dhamana yeelay arintaas waxaan ku dhaqaaqaya inaan maartay masaajidka aan tago marka in la dhihi jiray Ibraahimul Kaynaci oo dadkii dambe ahay waxa weeye maartay waxa u dhahay ninkaasu ninka la yiraahdo Haatimul Himlaani la dhihi jiray oo asagana caabidahay oo maartay dadkii taabiciinta ahay wuxuu yiri maartay 40 sano ayuu masaajid imaamka ahay yiri hadalkaas waxa sheegay waa maartay ninka Ibraahim Kaynaci Haatim marka waxa Haatimul Himlaani 40 sano ayuu masjid imaamka ahay yiri ma taraka salatan waahidatan fi jama'atin hal salaadood maartay kama tigno dhahay jamaaca la'aan dhahay wala sajada lisahwi yow dhahay fi jami'i hadhihi almudda illa 6 marrat dhahay waxa la yiraahdaa sujuudu sahwina uma dhicino sahwi ma gelo dhahay waa 40 sare ugu sahwi ma gelo ila 6 mar kaliya eedo dhahay waa loo tiri 40 sano waa ka waran dadka maalintii inta soo jeerow inta ragcado dukado sahwiha ilaa waxa weeye qalbiga adduunyo uga jirtaa adduunyadu waa ugu weyn markaas waxa arkaysa sujuudu sahwi loo sii dhacaayad arkaysa waxa keenay markaas qaflada ayaa keenaysa وكان لا يدعو البكاء ولا في الصلاة مطلقا صلاة كسنة وحوي أوين كما تجينه ده وقبضت روحه وهو يصلي
أو كهلا مركة ننكا ليلة هذا حاتم الحملاني إلهي نفتي سقاذا مركو لمناي صلاة كجري أبا سجودها تاد كل ركن أركان تميلي كي تد نلو مشيين لكن صلاة إسقو كجرة أيا إلهي روح دي سقاذي شهادة سو مركا سو هراء كورهنا عجائب واي مركا وحاجر تاد كور نك اللي هذا ثابت ابن الحجاج أيا وحو شاقي عمر بن الخطاب أيا صلاة أصاب حول سيدنا عمر بن الخطاب dadkii baa marka soo qaabilay maadaama saxaabigaas jaliilka ahoo asxaabadii ajilada waaweyned uu yahay muadinka ayuu faray marka oo yiri aadaan salaada waa istaagay markaasuu wuxuu dhahay wallaahi laa nantadiru li salaatina ahadan waa istaagay markaasuu wuxuu dhahay لا ننتظر لصلاتنا أحد نوده أحد كينا قفل صلاتين أحد لم يسوي نوده صلاة دي مركو ده بيوضتك سوق قابلي مركا صورة ما بالوا أقوام يتخلفون يتخلف بتخلفهم آخرون والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيجاء أعناقهم ثم يقال اشهدوا الصلاة وعاورهاي مؤذنك مركو صلاة آدامي ووقتنا أوجوه دادا مركا سام مقن معناه دادك مركا مقناي سيد عمر آبي يلينه صلاة دي مركا سو أو قلي مركا سو داي والله لا ننتظر لصلاتنا أحدا صلاة دين أحدا لسوينا مجرتوله salaadii markuu dhameeyay ayuu dadkii soo qaabilay markaasuu dhahay dad xaalkoodu muxuu yahay oo salaada dib uga dhacaaya ee dad kaleentood marka ayaga takhallufkooda ay uga daysanayaan wallaahi aan ku dhaartay waxaan hamiyo dhahay oo aan go'aansaday waxaan is dhahay uu hamiyay oo isla amaad yeeshaa inaan dad u diro oo qoorta laga garaaco dhahay ka bacdina la yiraahdo in la tumo ushudu salaata la yiraahdo salaada soo xaadira marka waxa weeye dadkii maartay salafu saalix sidaas ay waxay u lahaayeen cibaadada iyo daacada ilaahay wax kasta uga weyneeday ajra Anas ibn Malik saxaabiga leeyahay qaadimka nabiga kana yabki kullama tadhakkara mar alla markuu maartay meel ila tasatur meel yiraahdo dagaal ka dhacay ayaa jiray oo magaalo oo markaas muslimiintu ay furteen waxyaabo badan ka dhacay markaasuu markuu xasuusto jihaadkii iyo dhibaatadii iyo xaaladii waa ooyi jiray leeyri waxa weeye cibaadada iyo khayrka iyo maartay dadaalka sida ay maartay ay ku ahaayeen asxaabtii nabigeena kaleey salaatu salaam iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanay wax laga sheekay kara ma marka waxaan rajeeynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqooda naqaasiyo هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب كانوا وحاو قبضونا هدي ألا يراهدو نشرينتا دينتا إسلامك إنانو كفدنو oo aanu gaarsiino dadka walaalahayna ah oo Soomaaliyeed ahlu khayrka ah inay su'aalaha iyo jawaabaha ay ka helaan oo su'aalaha soo weydiiyaan wixii ishkaal uu ka galo ilaahay wuxuu naga fahamsiiyay aanu jawaabta ugu celino ayaanu doonaynaa